kulankan oo ahaa mid looga wacyigelinayay ardayda dugsiga dhagolayaasha Laascaanood xanuunka faraha ba'an dunida ku haya ee COVID-19 ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Sool maayarka degmada Laascaanood gudida COVID-19 ee heer gobol gudoomiye ku-xigeenka xuquuqul insaanka qaranka mas'uuliyiinta hay'adda Bisha Cas iyo maamulka dugsiga dhagolayaasha Laascaanood waxaana looga wacyigelinayay ardaydani maqalka naafada ka ah sidii ay uga taxadari lahaayeen xanuunka COVID-19 iyadoo sidoo kale loo ballan qaaday in loo dhisi doono goob ay wax ku bartaan oo khaas u ah Amina Yuusuf Gahaad oo ku hadlaysay afka mas'uuliyiinta dugsigan iyo gudoomiyaha hay'adda Bisha Cas Daakir Maxamuud Warsame ayaa hadalka ku horeeyay madaxda sharafta leh halkan maanta ku soo booqatay dadka maaragtay laxaadkoodu kala dhantaalan yahay sida u garab istaagi lahaayeen barasaabka maayarka daakir wasaaradda waxbarashada kulli waan idin mahad celinayaa dhammaantiinba dadkan waa dad naafo ah waa dad gobolka iskuulka jira oo iskuulka dhagolayaasha waa dad tiradoodu ayna yarayn waa dad u baahan in wax la fahamsiiyo especially xanuunka hadda jira oo ay iyagu wax ayna maqlayn wax adduunka ka dhacaya ee dadku ka wada qayliyay dawladihii maaragtay quwadda lahaa oo iyagu ayna waxbaba ka ogeyn hoos u eego dawladda maaragtay hay'adaha dawliga iyo kuwa maxalliga iyo barasaabka iyo maayarka iyo kulli dadka qusayso oo dhan inay gacan qabtaan marlabaadka waa laba qodob mid waxaan leeyahay waa hawshan COVID-19 ka saano maama Amina isu jiraab taag lahayn iyo tiimkeeda loo wacyigelin lahaa ururkan taas waa qodobka labaad waa message-ka uu sheegay barasaabka iyo maayarku jabka gacanta gelino dadkan qorshe u sameeyno long term dadkan aan u sameeyno kooda maayarka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Taarwale gudoomiye ku-xigeenka xuquuqul insaanka qaranka Waris Abshir iyo gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Tiire ayaa sheegay inay ka howlgali doonaan sidii ardaydani u heli lahaayeen goob ay wax ku bartaan iyo xuquuqaha kale ee ka maqan maanta halkan waxaan u nimi in la wacyigeliyo oo duruufahan maanta inagu xeeran ee caalamka ku xeeran ee corona-19 inaanu ka wacyigelino waan mahadnaqayaa maama Amina Yaxye dhammaan madaxda iskuulka dhagolayaasha ama dadka baahiyaha special needs dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxaan markaa halkan ummadda deegaanka ku nool ee daafaha caalamka iyo dalka gudihiisa joogtada uu sheegaya baaq u dirayaa insha Allah markii ii baxdo inaynu program gali doono caruurta halkan fadhida iyo caruur kale oo aan waqtigu u saamaxay inay halkan yimaadaan iyo qayb kale ugu soo kordhin doono xagga indhaha inaynu dhammaanteen ka wada hawl gallo waxa la gacmo wada jir bay wax ku qabtaan barbarkay ka baxdaa waa bakala qalan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay imaanshaha maanta aan idin imi maadaama aad tihiin dadkii muxuu ahaayay aniga aad ii khuseeyay aad baan ugu faraxsanahay marna gobolkaygii ah marna dadkii muxuu ahaayay ka tabalaasnaa indhaha iyo dhagaha aad baan muxuu ahaayay ugu faraxsanahay inaad la kulmo ogaado baahidiina siday tahay halka la idinka caawiyo waxaad u baahan tihiin si aan idinka taageero wixii aan idinka qaban karo gobolka muxuu ahaayay caasimadii iyo dawladii idinku baaqaya inaad iska ilaalisaan xanuunkan waa xanuun khatar badan qof indhale iyo qof dhagalaba muxuu ahaayay iyo qof mudan dhanba dadka adduunka ka cabaadiyay iminka runtii waa ku faraxsanahay inaan nimaadno hortiina inaan soo hor istaagno anagoo idinku wacyigelinayna xanuunka COVID-19 ee 19 idiina sheegno in sida iskuuladii kale loo fasaxay iskuulkiinuna uu fasax u yahay xuquuqda aad leedihiin dadka leeyihiin in idina xuquuq la mid leedihiin anaga inta waxaan noo dheer dawlad ahaan iyo shacab ahaan baa anagoo isku tiirsan inaanu idin garab istaagno inaanu meel idinka idin gaara oo aad wax ku barataan oo aad relax ku qaataan oo aad ku ciyaartaan oo xuquuqihiina gaarka aad ku heshaan inaanu idin sameeyno runtii oo dawladuna qayb weyn ka qaato bulshada gobolka Sool ku nool iyo degmada Laascaanoodna qayb weyn ka qaataan waan ogahay Soomaalidu waxay tiraahdaa dhagolana casi ma jiro bale dhagolo dhoon waa fariid kana intelligence baatiina waad ka aqli badan tihiin marka aqligiina iyo maskaxdiina inaad ummadda uga faa'iideysataan aydan is odhan waxbaad leedihiin waxa mali idin ilaahay baa saa idin gartay qofkana sida ilaahay u gartay inuu raalli ku noqdo waa wanaagsan tahay
لبان أحمد عيسى لبان قرن وربهين تقرن كالسوماليلان لا سعانود حرونتا قبل كالسول